بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan hambaliyada ciidul adxa la wadaagayaa ama aan hambalyo u dirayaa dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. waxaan leeyahay hambalyo ciid wanaagsan. kullu caam wa antum bikhayr. taqabbal Allahu minna wa minkum saalih al-a'maal. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa ciideeda inuu ilaahay nagu gaarsiiyo caafimaad qab iyo barwaaqo. intaas kadib waxaan rabaa inaan munaasabadan uga faa'iideysto dhowr qodob. saa ogsoontihiinba waxaan ku jirnaa ama dalkeena Soomaaliya u marayaa xaalad kala guur ah, waxaana hadda ku jirnaa xilli doorasho. marka waxaan rabaa dhowr qolo inaan kelmado oo dardaarana siiyo. number 1, marka koowaad waxaan rabaa inaan la dardaarmo nabadoonnada iyo cid walba oo shaqo ku leh oo soo xulaysa ergada dooranaysa baarlamaanka matalaya dowladda Puntland. waxaan leeyahay nabadoonnada iyo cidda kale ee khuseysaba waa mas-uuliyad ilaahay subxaanahu wa tacaala berri ka maalin inuu la xisaabtamayo. waxaanu doonaynaa ka shacab ahaan inaad noo soo xushaan ergo aan doonayn ama aan qaadanayn laaluush, ee ku shaqaynaysa mabda iyo inay codkooda siiyaan oo ku soo saaraan nin xildhibaan ah oo u adeegaya dalkan iyo dadkanba. nabadoonnada iyo cidda ay khuseysay ergadaba sidaas ayaan leeyahay. ergadana waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad ka baqdaan ayayna xasuusinayaa, iskana ilaalisaan inaad wax laaluusha qaadataan oo aad dalkan iyo dadkan usoo saartaan xildhibaano noo soo doortaa madaxweyne ay raalli ka yihiin ummadda Soomaaliyeed oo dalkan iyo diintanba si fiican ugu shaqeeya. iyagana intaas ayaan leeyahay. baarlamaanada dowlad goboleedyada meel kasta ay joogaan iyo gobolka Banaadirba soona dooranaya aqalka sare, iyagana sidoo kale waxaan leeyahay codkiina ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baqa oo soo saara xildhibaano dadkan samata bixiya oo si fiican ugu shaqeeya oo daacada dowladda Soomaaliyeed. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa bilaha soo socda inuu inoo soo saaro madax dalkan iyo dadkanba ay ku diirsadaan oo ka shaqeysa danahooda adduunyo iyo tooda aakhirada. aad iyo aad baa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.